meesha nabiga wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka ugu dambeeya saanqaadkiisa waa laga maqlayaa qofkii naftiya lagu soo celinaya meeshaan ayada ilaahay subxaanahu wa tacaala laba malagaa la soo dirayaa labadaas malag ilaahay subxaanahu wa tacaala su'aalo uu dhiibay wadaan qofkii adduunyada ku diyaariyey su'aalahaas waa u fududaanayaan saddex su'aalood wey man rabbuka yaa ku soo barbaariyey diinta wamaa diinuka diin iyo xukun iyo xeer maxaa ku ahay macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa ku ahay nabigaagana iyuu ahay calayhi salaatu wasalaam ama suuradda nabigaa loo keenaya calayhi salaatu wasalaam qofka bini aadamka hadduu ka diyaarsaday su'aalahaas adduunyada korkeeda waa u fududaanaysaa inuu ka jawaabo dadaa afka kala taagaya nabiga uu noo sheegay maa adri su'aalihii ka jawaabi kari waayo munkar iyo wanakir waxa loogu bixiy xagga muuqaalkaa la ikiraa maba arki karo qof aan iimaan lahayn waa argagaxayaa markuu arkaba saas la eligeeda nabigana wuxuu noo sheegay alqabru rawdatu min rawdi aljanna aw xufratu min xufra niraan nabiga wuxuu yidhi qabriga wuxuu noqonayaa god naareed ah ama beeraha jannada uu noqonayaa saddexdaas su'aalaa sabab u noqonayso haddii adduunyada markaad joogtay ilaahay subxaana wa tacaala macrifo dhaba aad u lahayd nebi maxamed aad raacday diinta aad hoggaan iyo dastuur ka dhigatay saddexdaas su'aalood waa kuu fududaanayaan haddaad dib martay waa ku dhibaataynayaan ilaahay subxaana wa tacaala saddexdaas su'aalood dhibaataa kaaga imaanayso saas la eligeeda walaalayaal ilaahay jalla wacalaa adduunyada wuxuu noo keenay cayaar nooma keenin waxay naga xidhay jazaakum allahu khayran adduunyadan ilaahay cayaar nooma keenin wuxuu noo keenay ilaahay jalla wacalaa macrifadiisa inaan ku xasilino qof walbana geerida ilaahay baa ku qasbay oo qof walba waa ka tagaya adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaana laga rabaa intaan adduunyada joogno su'aalahaas aan iska hagaajinno su'aalahaas kadib bacdiyaa jiri doono ilaahay uu leeyahay yowma kaana miqdaaruhu 50,000 sana maalin 50,000 sano dhirikeeda ay la eg tahay meeshaas ayada walaalayaal nabiga wuxuu yidhi bini aadamka camalkiisa waa go'ayaa ilaa bialaaa saddex walxadood ma ahane camal ilaahay qofka sadaqa jaariyahu dhiibtay walad saalix oo aad ku dadaasho diinta barto gadaashaa kuu soo duceeyo iyo cilmi gadaashaa lagu anfacsado camalka bini aadamka waa go'ay waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa wa anna sacyuhu sawfa yuraa uma yujzaahu jazaa'a alawfaa bini aadamka camalka waxa laga rabo waa intuu nool yahay saas la eligeeda walaalayaal waano iyo tusaale iyo aragti waxaa noogu filan qofkaan naqaanay oo walaalkan ahaa oo shalay nala macaamilayay oo maanta adduunyada ka tagay annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala fallaartii cirka loo gamay waa soo foorartaa qof walbeeta goormaad dhimanaysaa waana laga qariyey qof walbeeta inuu u dadaalo war aniga ilaahay anoo raalli uga yahay saan ku dhintaa masaajidada aan u badanno culummada aan ku xiranno diinta ilaahay aan calaaqad la yeelanno waqtigeenna aan ka fikirno maxaa yeele rabbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay rasuulkiisa wuxuu noo sheegay laa tasaalu qadama cabdin xataa yus'ala can arbacin addoonka ilaahay hortiisa ka tegin maayo qiyaamaha إلا لقوا ويدي أفر سؤالك وعن عمري فيما أفناه والعمر كان كل شيء أنت تكون بحسي وعن جسدي فيما أفلاه تركي أنت كل ما هذه الروايات كلا وحي أهد قال يرني ماذا أنت يكون بحضي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه مالك أنت كنت أنت يكون بحسي وعن علمه ماذا عمل به علمي أن كبر ما حدك عمل خشي ولا يلو فرصة أنا هاي سنة ما أنت امتحان هدي لك قاضيه امتحان جامعة عدد ويا أما دوكسي سنة أما امتحان نوع دون بقى هذا مراقب ولا ولا ضد كنترول امتحان كوالا قرية قفك لكن إلهي هذا الروم معها نحريص بدنوي الدومدي سجعل قبرك صدق هذا سؤالنا ونوشة الدنيا كود دياري كرنا ما أنت هدي عنق امتحان وقريه هذين كانوا سوجد على جيابا والدنيا بس على غربة يوجو لكن امتحان كرنتها يا مستقبل كي ضبطها أو بالله أنا يا ماشر وكبر اللوضة ماشان وحكي جويو waxa maanta ku masquulsanahay oo dhan maahan ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaan iyo camal saalax waxa ka gooyo rabbigoo la bartay rasuulkoo la raacay diinta xukun iyo xeer laga dhigtay taasaa meesha wax ka gooyso taas la eligeeda walaalayaal fursadan aan haysanayaana beerdarayn qofka intuu nool yahay fursad oo haystaa walaalkan ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ilaahay ha u dambi dhaafo annagana fursad weynaa noo furan ilaahay waxa naga qaldan ilaahay inaan ka dambi dhaaf ka weydiisano bini aadamka gafbadana wey bini aadamka waa gafayaa habeen iyo maalin laakiin alla raxiima oo tawaaba oo dembiga hadduu kaga soo noqdo aqbalow leeyahay tawbada walaalayaal wax culus maahan culimadu waxay leeyihiin saddex shay wey qofka shaygu ku jiro xumaanta gacmaha inuu kala baxo labo qofka inuu ka qoomameeyo saddex neefka candhadiisa caanaha sidii markii laga soo saaro dib aan loogu celi karin in qofkaasi uu macnaha uunan ugu noqon shaygii xumaanta ahaa in haddii waxay leeyihiin culimmada xaquuq bini aadan ay kala dhaxaysa xaquuq bini aadan kaala dhaxaysane cirdigiisaad dhibaataysay maalkiisaad dhibaataysay inaad raddul madaalimsi qofkii dhibaatadaas aad u geysatay aad ka xalaal dalbato maanta fursadaan haysanaa ilaahay albaab weyn oo tawbaha noo furay ilahay wuxuu leeyahay qul licibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaahi ina allaha yakfiru dunuuban jamiican addoommadayna ka quusanin ilaahay naxariistiisa salaadaha waqtigooda haddaan ku tukanno meeshaan rajo fiicanaan leenahay haddaan ilaahay macriifo u yeelanno salaadaha waqtigooda ku tukanno rajo fiicanaan leenahay haddaan salaada galab naga tahay jaaga ay noo jaran tahay
qaflad aan ku jirno halisaan ku jirnaa walaalayaalow adoon buuli burta jooga baariisna joogayaan lagula cadaabi dhaqankeena dhaqan islaam aan ka dhigno islaamka aan jeclaanno maxabadiisa qalbigeena ha ku weynaato ciyaartooy yaanan jeclaan gaal yaanan jeclaan noocu doono yaanan jeclaan ilaahay aan kaga baqno maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa kala kamisay leeyihiin laakiin nabiga wuxuu yidhi man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum hore ninkii isku shaabaha ayuu ka mid yahay jaagada macnaheeda u jarato waa maxay war islaamka haddii lagu yidhaho boor qaado ee islaamka dhexmar faa'iido ma leh ma yeelaysa islaam iid haddii lagu yidhahno waa dagaalamay jaagada macnaheeda waa maxay nabigu wuxuu yidhi nima u yimid dhoor loo suubiyo waa samanka nabiga calayhi salaatu wasalaam cunug yar markaasuu yidhi madaxa ama ka wada xiira ama u wada deeya jaagada macnaheedu waa maxay qofkaad kaga daysatay aad leedahay qofkaasaa fiican qofkaasaa dadka standard ah qofkaasaa qudwo ah qofkaasaan ku daysanayaa qofkaasaan aaminsanahay ma fiican tahay walaalayaal ilmaha guryaha aan ku haysanno oo aan dhalnay oo jirkeen ilaahay ka soo gooyey ilaahay qiyaamo waana weydiinayaa aabbaha waxaa la yidhi hadduu qafladaysan yahay ilmahana qafladii ku dhacayaan war annaga aan istoosinno ilmaheenna si u toosaan